galab anigoo iska xarakeynaya oo u sii socday Shaney Maxamed Jadiid oo uu filin cusub ka deganaa ayaan ku soo dhacay waddo ay dad badan dhooban yihiin. Waxaa meesha ka qaylinaya laba gabdhood oo aan qaraabo kora ahayn. Gabdhaha waxaa soo fowdeeyay mid ciyaalka xaafadda ahaa. Markii ay arkeen ayay igu soo ordeen. Waxay dhaheen waxaa yimid walaalka weyn. Dadkii meesha joogay oo dhan ayaa ishitaaray. Ninka waafaca ee soo garaacaya i dhaheen. Markaas anigu nin nabadda jecel oo aan dagaal ku soo talagelin ayaan ahaa, balse reer waqooyigu waxay dhahaan dagaal gondahaaga ayuu ka dhashaa. Anigii cabsi ayaan la qarqaray, haddana dadkan tirada badan hortooda ha ku fashilmin ayaan isdhahay. Waxaan dhahay ii geeya baatarka. Intii aan sii socnay waxaan ka fikiraya ninka ay ii geyn doonaan inta uu la eg yahay. Qamarji weyn oo indho gadgaduudan oo ay u xiran tahay toorey dhirir badan ayay i horgeeyeen. Wuxuu fadhiyay dhagaxaan u dhoweyd warshadda biyaha Caafi. Markii uu i arkay ayuu tooreydii la baxay oo uu yidhi soo soco. Naxdin darteed ayaa lugihii qaadi waayay. Gabdhihii gadaashayda ayay ka sacbinayaan oo ay leeyihiin qaba ninka ee garaac soco soco. Waxaan ku sigtay inaan dhaho xariifow tooreydan naga xareey aan wada hadalne. Markii dambe intaan nafis geliyay ayaan laba dhagax oo waaweyn dhulka ka haabtay. Ninkii waa igu soo dhaqaaqay anigoo ku labalabeynaya inaan meesha nafta kala baxsado iyo inaan dagaalamo ayaa waxaa gadaashayda ka soo baxay mid ay dhihi jireen Saadaq Dheere oo baangad wata. Hal mar ayaan arkay qamarjigii tooreyda watay oo cararay iyo Saadaqii oo isdaba dhigay. Anigii meeshayda ayaan dhaafi waayay oo wadnihii ayaa afka i soo galay. Waxaa i dhaafay gabdhihii iyo dadkii xaafadda oo ninkii bursanaya. Labadii dhagax ayaan ka sii daba tuuray. Jardiin meesha ka dhowaa ayaan gees ugu dhacay. Dadkii xaafadda oo ku qaylinaya geesiga ayaa igu soo laabtay oo si weyn ii ammaanay. Anigii waan isxanaajiyey anigoo leh waan ka xumahay inuu maanta iga baxsaday fulaygaas. Gabdhihii way ii sacbiyeen waxayna ii bixiyeen Ajay Devgan. Maalintaa kadib marka aan shaneemada ka imaado xaafaddooda ayaan ka soo cabi jiray biyo qasan oo baraf leh. Geesinimadu waa inaad wax yar lugaha dhulka ku adkayso. Waa inta uu ka imaanaa Saadaq Dheere, ayuu leeyahay al-Ustaad Cabdirasaaq Xasan Jidhi qoraha sheekadan. Waxaan filayaa saaxiibayaal inaad sheekada ka bogateen. Inala wadaag aragtidaada iyo dareenkaaga ku aadan sheekadan yaabka leh oo qaybta hoose faallada inoogu reeb. Sidoo kale muuqaalkanna la wadaag asxaabta kale oo inoo sheer gareeya. Boggan waxaad ka heli kartaa sheekooyin maad iyo macno leh, qisas xigmad iyo cibro qaadasho intaba leh oo bulshada waxtar u leh ayaad kaga bogan kartaaye. Soo dhowaada maalin wanaagsan.